السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن أصحابي ميل كستو الجوكتان كسر دوادا برنامج كان هبين نمو سبديا أو أحد أي سوق ليسو تاريخ ذنا أي تاي لحية طبانك بشا أغسطو سنة كالبكون يشاني لباتن هذا بقى قضبضا برنامج كاينو عاوذي كوسو قد بنينو وحاكب الدقون دونا أباندولها عيدا كإسرائيل إيو وزير كقاشان لقا أو بريتو بلانسان maxay ka wada hadli doonaan qorshihii dagaalka miyaa hoosta laga xariiqi doonaa sootay labadoodu diriirsanaayeen ma heshiiyeen haddaba sheekooyinka arikaa ku saabsan ayaynu barnaamijka ku faaqidaynaa war caawa ka soo baxay ciidanka Israa'iil ayaa lagu sheegay dadka ku nool magaalada Gaza ama xaafadda Gaza la yiraahdo in loo wareejinayo oo teendooyin la siinayo oo la dejinayo koonfurta si ay ciidamadu howlgal uga bilaabaan aagaas haddaba reer Gaza arikaa ma yeeli doonaan qodobadaas waan idin hayaa waxa soo kale caawa soo baxaya war sheegaya ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Witkoff inuu haddana keenay qorshe kale oo ku saabsan in dagaalka Gaza lagu joojinayo qodobadaas ayaynu barnaamijka ku soo gudbinaynaa qaybta dambana waxaan idinkugu hayaa war aad u xiiso badan jarmalka oo la sheegayo inuu la maagan yahay shirqool halis ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haddaba Putin shirqoolka miyuu ka badbaadi doonaa iyana barnaamijka ayaan ku faahfaahinaynaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa idinkugu soo gudbinaynaa inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaana waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan haddaba waa habeennimo sabti ah oo xad ay soo galayso barnaamijka waa barnaamijkeenii saddexaad waxaynu ku bilaabaynaa abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa waxaa la sheegay barito inay ballansan yihiin oo ay kulmi doonaan wasiirka gaashaandhigga ninka la yiraahdo Israa'iil Katz haddaba labada mas'uul waxaa loogu wardambeysay iyadoo warbaahinta Israa'iil ay falanqaynayaan ka hadlayaan oo ay leeyihiin labadoodu waa dagaalsan yihiin xafiiskayga ma iman kartida la yiri ninka abaanduulaha ah hawsha halkaas maray hadda caawa maxaa loogu xigay bariye ballansan yihiin haddaba marka tafaasiil laga bixiyay marka ballantu maxay tahay maalmahan wuxuu lahaa waxaan rabaa inay ii soo dadajisaan qorshaha Gaza lagu qabsanayo keena aad diyaariseen abaanduulaha iyo saraakiisha ciidanka waxaa dhahaya wasiirka gaashaandhigga si aan anna ugu gudbiyo Netanyahu iyo wasiiradii si markaa ay hawsha u qabsadaan masaasa ahaa ninkii marka barito waxa leeyahay ballanta uu leeyahay waa ballan maartay noocaas la leeyahay oo barito qorshihii uu diyaariyay ayuu wuxuu rabaa inuu u geeyo ninka Katz laakiin heshiis kale oo gooni oo ka dhaxay ma jiraan labadooda mid heshiis ku yihiin inay reer Gaza baabi'iyaan oo ay la dagaalaan oo ay garaacaan labadoodu way isku waafaqsan yihiin laakiin labadoodu wax kala ka dhaxayo la garanayo Ilaahay baa iyaguna shaki iyo dhibaato kala dhex dhigay marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayaan abaanduulaha ciidanka ninka la yiraahdo Zamir inuu Katz u gudbin doono oo wasiirka gaashaandhigga ah qorshaha qabsashada Gaza warbaahinta Israa'iil caaw waxay leeyihiin abaanduulaha ciidanka Iyal Zamir ninka la yiraahdo ayaa barito axada
wuxuu doonayaa wasiirka gaashaandhigga inuu u gudbiyo qorshaha ay ciidamadu diyaariyeen iyo qaabka loo qabanayo Gaza. marka berito nimanka hawshoodii wataan waxay leeyihiin wixii dawladdu soo saartay waa fulinaynaa ciidanka, laakiin qorshaha loo dhiibi doonaa marka laga sii hadlay inkastoo aan la soo bandhigin, laakiin dad khubaro ah oo la wareystay waxay leeyihiin waxay nimankan ciidanku sheegi doonaan khataraha ka dhalan kara dagaalkaas. horeyna way u sheegeen iyadoo afa, haddana iyadoo dokumentiga gudbinayaan. waxay leeyihiin ciidanku waxaasi u baahan yihiin ciidamo dheeraada in la keeno u baahan yihiin, maxay ahaa taangiyadii in lasoo badiyo u baahan yihiin, in wixii ka yimaado soo gaara maxaabiistana laka haysto way dhiman karaan, way baabi'i karaan, madfaca ku dhici kara, adinka mas-uuliyaddeeda qaadaay. marka xogtii oo dhammaystiran guulaha sida loo gaari karo iyo khasaaraha ka dhalan kara intaba odaga beritaa loo dhiibayaa layidhi. marka qodobkaa isagu halkaasay kaga gudbaynaa. qodob labaadaa soo baxay. israa'iiliyiintu waxay leeyihiin dadka xaafadaha aan rabno inaan weerarno Gaza la yidhaahdo jooga waa inay ka baxaan xaafadahaas oo ay tagaan koonfurta. annagaa waxaan siinaynaa teendhooyin iyo alaabooyinaan siinaynaa si ay noogu fududaato inaynu qabsanno xaafadda Gaza la yidhaahdo, dadka rayidkuna ay halkaa ka baxaan. warkaasu isaguna galabtuu soo dhaxay. reer Gaza ma ogolaan doonaan, ma diidi doonaan, waa hawl kale. dadku waa dad iska masaakiina, caruur yaryar iyo dumar. waa idin garaacayna haddii kale halkan ka baxa haddii la yidhaha inay iska baxaana laga yaabaa, laakiin dhalinyaradii iyo dadkii kale iyo iyagu ma ogolaan doonaan. taas waa hawl kale, laakiin nimankan khidadaas ayay keeneen. haddaba markaan idintu soo qodobka barnaamijka Aljazeera waxay leedahay ciidamada gumaystuhu waxay sheegayaan inay u rari doonaan dadka ku nool xaafadda Gaza la yidhaahdo dhinaca koonfurta inay u rari doonaan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay siin doonaan dadkaas teendhooyin ay ku hoydaan oo ay guryo ka dhigtaan dadka reer Gaza. marka la sheegay hawshaasuna inay bilaaban doonto berito hawsha raridda. ninkii marka u baahan in halkaa loo raro waxaa la siin doonaa teendhooyin ayay yidhaahdeen halkaas. waa tahay marka qodobka kale ee barnaamijkeena caawa aynu ku soo qaadanaynaa wuxuu yahay ninka u qaabilsan Mareykanka arrimaha bariga dhexe Witkoff ayaa waxaa leeyahay hindise cusub oo nabadeed ayuu isaguna keenay. waxaa marka dadku ay leeyihiin waa in la iswaafajiyaa sidee caqligu u keenayaa. Israa'iil dadee meel ka raree dagaal ay u socotaa, waxbaan qabsanaynaa ay leeyihiin. abaanduulihii ciidanka berito dokumentiyo gudbinayaa, niman dagaal u socdo waay. Mareykankina dhanka kale wuxuu ku leeyahay hindise cusubaa keena dagaalkaa lagu joojinaa. waxay leeyihiin dadkan yaa lagu ciyaaraa. nimankan Mareykanka iyo Israa'iil ciyaar way dheen. waxay u moodaan dadku inaysan caqli lahayn oo wax badan fahmayna lagu leeyahay. marka sheeko walaal halkaa ka socota aan idin tuso iyadana. telefishinka Aljazeera wuxuu leeyahay warbaahinta Israa'iil waxay ka hadlayaan hindise cusub oo Mareykanka uu keenay kaasoo ah sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda Gaza. jariirada la yidhaahdo Israa'iil Hayom ayaa caawa qoraysa warbixin ay leedahay Mareykanku wuxuu soo gudbiyey qorshe cusub oo markaa lagu dhammaynayo oo xal daa'ima loogu helayo arrinta ka taagan dagaalka Gaza oo markaa heshiis lagu dhalin karo. marka haddii heshiis la keeni karo oo waxa kanoo heshiis ku dhammaan karaan, maxay Israa'iil hal dagaalka u wadaa oo dadkaan raraynaa ugu hayaan? marka waxaa leeyahay sheekadaas iyaduna halkaas ayay maraysaa. qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko la yaab leh. Putin ma ka badbaadi doonaa shirqool halis badan oo Jarmalku u maleegayo sida la leeyahay? haddaba muxuu yahay shirqoolkan? waan idiin soo gudbin doonaa xayisiiska kadib. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markasu daaru taqwa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaano The View xaafadda Parklands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba iminka waxaa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo. waa habeennimo sabti ah oo axadi ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu ku jirnaa. qaybta waxaynu ku faahfaahinaynaa sheeko cajiiba oo soo baxaysa. jarmalka oo la leeyahay wuxuu shirqool la maagan yahay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, laakiin shirqoolkan waa shirqool ruushku ka baxsan yahay. Putin nin la gaadi kara ma yahay, isagaa wax gaadi jiray, wax nagta ka saari jiray oo luqaafo iyo iska daba wareeg haddaa maqasho waa aabaheedaa lagu leeyahay. Putin nin gaadi kara male. marka hadda waxaa leeyahay jarmalkiya wuxuu u rabaa inuu ninkan dabin u dhigo. haddaba muxuu yahay dabinka? marka caawa waxaa soo baxay markii xalay Alaska ay ku kulmeen isaga iyo Trump iyo sheekooyinkan soo baxeen. jarmalku wuxuu ku leeyahay shirka kale ee la qaban doono Putin, Trump iyo madaxweyne Zelensky oo madaxweynaha Ukraine, saddexdooda shirka ay yeelan doonaan waa in Yurub lagu qabtaa, wadan Yurub ah in lagu qabto waayo. maxaa yaala marka maxkamadii dambiyada Putin ha la soo qabto ay tiri iyo wixii oo dhan waa yaalaan. marka ninkan wuxuu ku leeyahay Yurub ah lagu qabanaa. Yurub markuu Putin yimaado ay waxay rabaan inay shirqoolaan sida dadka qaar ay ka hadlayaan. laakiin waxaa leeyahay Putin nin waxaas ka horeeyo waayo. ninkii waxa waaye markuu diyaaradda ka soo degay Alaska ayaa wariyaal meesha lagu diyaariyay. markaasaa su'aal isaga tuureen isagoon shir jaraa'id ku jirno markaas soo degay. markaas waxay yiraahdeen madaxweynuhu waxaan ku weydiinaynaa ma joojinaysaa dadka masaakiinta reer Ukraine ee allaynaysa yiraahdeen. waa su'aal weyn boogta. Yurubiyanka waxa kana u soo dhiibay wariyaasha qaar caadi ba way ku tuureen. ninkan marka waxaa la isla uu khalkhalaya. markaasuu soo degay shir jaraa'id laguma jiro, waxba laguma jiro, nin wariyaa isaga tuuray. in markii uu qaabilayo waaye roog gacas uu ku socday. ninkii saasuu u fiiriyay. markaas wuxuu yiri aad kuma maqlo waxa aad sheegtay, maba aan maqlin oo fahminaa leer waa la iska tagi. marka ninka marka waa nin noocaas niba karuna inay gaadaan ay rabaan Yurubiyanka. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekadan ra'iisul wasaaraha Jarmalka ninka la yiraahdo Merz ayaa wuxuu soo jeediyay qorshe ah shirka u dhaxeeya Trump iyo Putin iyo Zelensky in Yurub lagu qabto. madaxda Yurubiyanka ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in markaa ay ka qayb galaan qorshayaasha shir madaxeedka ay wax ka diyaariyaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Ukraine si markaa heshiisku uga dhaco qaaradda Yurubna ay u ogaato xaaladdu halka ay ku dhamaatay. ninka marka Jarmalka ah wuxuu ku leeyahay Yurub aan ku qabanaynaa shirka saddexda madaxweyne meel Yurub ka tirsan. xalle ninka Washington inuu aad diiday meel kale aad diiday Alaska tagay. Alaska waa xuduudkiisa waa 4 kilomitir u jirtaa, wax laga qaadaa male, wax la iska cunaa male. iyadoo meesha la joogo ayaa Yurub imaana miya Yurub oo ay xaaladdu ku xun tahay. marka waxa leeyahay sheekadaasu waa sheeko wareersan. barnaamijkii caawa khiyaaray inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. waan filayaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aanu kusoo gudbinay barnaamijkaygii galabnimo iyo kii subaxnimo oo warar aad u xiiso badan ay ku jireen. like gareeya oo share gareeya barnaamijka haddaad cusub tahayna subscribe baa ka iloobi youtube-ka, facebook-gana follow gareey. asxaabay inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale nabadgelyo.